ku dhawaad 125 haween oo laga soo kala xulay haweenka shanta xaafadood ee degmada Kismaayo oo muddo 10 maalmood ah la barayay sidii ay u ganacsan lahaayeen ayaa munaasabad kooban oo lagu soo gabagabeeyay waxbarashadooda waxa ay ka dhacday xarunta farsamada gacanta iyo tababarada KTI ee magaalada Kismaayo. tababarkan oo ahaa mid ay soo qaban qaabisay hay'adda UN Habitat farsamo ahaan ay gacan ka geysatay xarunta KTI ayaa waxaa munaasabada gunaanadka ka soo qayb galay maamulka gobolka Jubbada Hoose kan degmada Kismaayo ururka haweenka xubno ka socday hay'adda UN Habitat iyo marti sharaf kale. ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay macallin Maxamed oo ahaa macallinkii waxbarayay haweenka muddadii ay joogeen waxaana uu ka warbixiyay waxyaabaha uu baraya. runtii barnaamijkan waxa barnaamij lagu tababaray dadka siday ganacsigooda u horumarin lahaayeen siday u sameyn lahaayeen suuqgeyn siday u sameyn lahaayeen xisaabaadkooda si ay u xiran lahaayeen siday u sameyn lahaayeen qorshe ganacsi u sameeysan lahaayeen ayaan ku baray oo ah qaabka loo sameeyo qorshaha ganacsi qof markuu ganacsi sameeynaayo tabcan waxa mar walba muhiim ah inuu yaqaan qorshaha uu ganacsiga ku sameeynayo marka hore inuu helo ideyada ama afkaarta uu ganacsi ku abuurayo kabacdi inuu ogaado qaabka uu afkaarta u horumarin lahaa ama uu suuqgeyn ugu sameyn lahaa qorshihii suuqgeynta u sameyn lahaa sida badeecadii qiimaheedii meeshii la geyn lahaa badeecada qaabku dadka u gudbin lahaa oo ah mataqaan ha noqoto xayisiis ha noqoto siyaabo kale dadka u gaarsiin kara dabcan ha noqoto waxaan kaloo baray qaabka qofku uu ogaan lahaa lacagta uu baahan yahay oo kaga baxaysa barnaamijka ka galaysa kharashka marka hore ka galaya intee tahay maxaa kaga baxaya waxaan kaloo baray sidoo qofku u ogaan lahaa maxaa iibin kartaa asbuucii maxaa iibin kartaa maalintii. qaar ka mid ah haweenkii ka faa'iideystay waxbarashadan ayaa dareenkooda muujiyay waxaana ay sheegeen wallahi ma sha Allah waxaan ka faa'iidnay waxyaabo badan sida ganacsiganaga u abuuran lahayn sida ganacsiga aan ugu faa'iideyn lahayn sida macaamiishana aan u soo dhaweyn lahayn wajiga fiican iyo sida macaamiishana waji fiican ugu soo dhaweyn lahayn. UN Habitat waa horumarkii dalkii hormuudkii hay'adaha horumarkii bulshada jahliga la dagaalanto dhalintii kacaysa ka safeysay jahliga aqoon la taabtay bulsho aqoon leh ugu ima UN Habitat waa hay'ad tayo leh oo anfacada geeyeena Soomaaliyeed macallimiin tayo leh oo baryaal akhlaaq leh oo ugu ima UN Habitat. wallahi waxyaabihi aan soo barnay waxa kamid ah qaabka ganacsigeena u maareysan lahayn waxa kamid ah qaabka macaamiisha u soo dhaweysan lahayn qaabka wax loo qorsheeyo qaabka qofka kula tartamayo aad micnihii aad uga duwanaan karto qaabka dhaqaale aad u tabci karto iyo meeshii aan u marleen wadooyinkii lacag madaxa xarunta KTI iyo xubin ka socotay hay'adda UN Habitat oo dhankooda hadal ka qaatay ayaa sheegay waxaan filayaa anigu waxa iga aadan hawsha ah tababarka aan idin qabanay iyo iskuulku wuxuu idin qabtay oo ah inuu idinku soo dhaweeyay aqoontan qaadateen 10 bari ahayd oo ahayd ganacsi runtii markii ganacsiga la yiraahdo baahida loo qabo waa la garan karaa maanta Soomaalida ay u taqaano qasaarooyinka ay la kulmaan waxaan filayaa macallinka oo idinka xaqabtiray arinta la xiriirta ganacsiga ee ah maanta aan u liidano oo ah in ganacsiga la hormariyo Kismaayo Technical Institute waxay aad idinkugu mahad celinaysaa 10 bari macallinka aad la qaadateen idinkoo laba group ah oo 5 bari la siinayay waxaan u sheegayaa dadku inay yihiin gudoomiyaasha dhameystiran 125 weeyaan arday oo gabdha ah marka waxa laga dareemi karaa 125 gabdhood marka la baray ganacsi magaalada Kismaayo ganacsigeeda sidoo isu bedeli karo hadii la maalgeliyo 125 qoys ayaa wax heli karaan nolol dhameystiran oo ah qof xirfadla ah u shaqo tagay reerkaasi oo garanaya bari waxa uu qasaaray iyo waxa uu faa'iidayo marka waxaan leenahay waa guul KTI u soo hoyatay iyo hay'adda UN Habitat inay mashruucaas dhameystirto ardaydaasna si fiican u helaan qofka sidoo isku maareynayo mustaqbalkoodii ay hore u socdaan insha Allah saas daraadeedii waxaan maaragtay training hadda ka hor intaan ka qabanay oo chapel briquet ahay oo maaragtay xashka gabdho ka qayb qaadso ma jiraan kuwa kale waxa jiraan oo ganacsi kale oo kala duwan ay sameeyaan marka trainingkan wuxuu u noqonayaa mid oo maaragtay oo kabaaya oo ka faa'iideysanayna qaabka ganacsiga waxyaalaha loo maamulo ganacsiga hadii la maamulo maxaa ku dhacay khasaara ku dhacay Soomaha marka wixii inta ka faa'iideystaan maaragtay ku dhaqma insha Allah dadka kale intay joogayna gaarsiya insha Allah macallinku wuxuu noo sheegay Kismaayo wax $100 lagu bilaabayo jira dhamaan uu ni sharaxmo uu ni sheegay wax $100 lagu bilaabi karo wixii $500 lagu bilaabi karo
marka waxaan rajaynayaa aniga naftayda waxay farxad noo noqonaysaa kolkaan aragnay gabdhaha haween anaga soo tababarnay xarun furatay derbi weyn guri kireysatay carwo furatay oo ku qoratay aan kolkaan ugu maadna dhahna ii waran nadhada waxaad i barteen aan ka faa'iiday waana kuwaan maalka maanga aan gistay aniga farxad weyn noo noqonaysaa dawladana farxad weyn baa u noqonaysaa ugu dambeyn ayaa waxaa madasha ka hadlay hadalkana qaatay ururka haweenka iyo labada gudoomiye ku-xigeen ee degmada Kismaayo waxaana hadalkaasi raacsaday madaxa arrimaha bulshada ee gobolka Jubbada Hoose waa fursad qaali ah fursadan aan helnay ee aan nasiibka u yeelatay Jubbaland maanta oo ay ka mid tahay dhuxushii haddana ay noogu xogaan ganacsiga waayo marka seminar gasho hadii $100 lagu siiyo miya 5 cisho $500 aad kala laabatid waad biilanaysaa meeshii ku dhimaatay maalinka dambe waxaa raadinaysaa seminar inaad gashido lacag laga siiyo laakiin farsamo gacan hadii lagu baro wax la mid ah ma jirto waa lagu yeeranayaa adiga waxaad gurigaaga ku samaysay yaad biilkii iyo kiradii iyo ilmaha dugsigii aad soo saaraysaa farsamada wax loo dhiga male waad aragteen injineerada guriga dhiso fundiga ma noqonayo marnaba biil la'aan ma noqonayo waa loo yeeranayaa soo gurigiisa jifo maxaa ugu wacan waa farsamo uu bartay marka annaga haddaan nahay dumar waxaana reebay macnaha inaan lacag u raadino ama biil iska qaadano aan guriga iska fadhino waxaa la baray haddana gabdho qaabkay u ganacsan lahaayeen dadkii ganacsiga u soo jiidan lahaayeen insha Allah taala hadalkayga ku sii dheeraan maayo UN Habitat aad bay u mahadsantay aad iyo aad waxaana ka codsanaynaa dadka hadii wax la baro la sii daayo barashadiisu waxay noqonaysaa laa yaanfac maamulida ganacsiga waa shaqo fiican UN Habitat ay qabatay insha Allah taala waxaan leeyahay ganacsiga laga faa'iideysto waxa ka horeeyay ganacsiga jaakulka ama dhuxusha xashka ayaa ka horeeyay insha Allah hal laga faa'iideysto waa ganacsi fiican waa tababar fiican oo ganacsi ah sidii aad ganacsigaada u maamuli lahayd annagu maamulka degmada hadii aan nahay aad baan u soo dhaweyneynaa ganacsiga sidiisaba qiimo kuma leh qof shakhsi qiimo kuma leh wuxuu ku fiican yahay group waxaan rabaa marka inaad ka faa'iideysataan oo aad group isu raacdaan oo aad ganacsi bilaabataan ganacsigana insha Allah taala hadii group noqotaan ilaahina waa barakeyna hadii khiyaano iyo waxyaabo kale laga daayo ee si sax ah lagu wado dadaalka ay wadaan waxaan ka codsanaynaa in ay ku daraan dadkan dad xoolo haysta ma aha dad isxil qaamay weey shan group oo isxil qaantay way 5 group oo lacag haysata ma aha 5 group oo waqti dheer soo shaqeynayay laakiin dadkan oo kulligood waxay ku shaqeeyeen iska qabsi isxilqaan bay ku shaqeeyeen haddaad wax bartaan oo wax siinin wixii aad barteen waxba kama qaban karaan haddaad xash barteen xashka aad barteen wixii ay ku soo aruurin lahaayeen iyo wixii isku geyn lahaayeen iyo wixii ku macambili lahaayeen aad siinin xashka waxba kama qaban karaan haddaad aad wax u sheegteen oo wixii aad u sheegteen dhiirigelin ina siinin oo u raacinin marka waxaan bartaan wixii aad u dhiirigelintii nin walba gurigiisu la aadaya waxba kama qaban karo waxbana kama keenayaan mashruucan muddo dheer baan soo wadnay gadaal baan ka soo riixinay xogaal baan u nahay waxa weeye dadka in waxay rabaan iskugu daro maxay ahaydey qaabkii maartay waxbarashadii qaabkii isukeenidii qaabkii maxay ahaydey ururadii sidii ahaayeen waxaasoo markii laga yimaado waxay rabaan in wax la taray rabaan annagana waxaan doonaynaa in ayaga wax la taro wax ay wax ku qabsaan la siiyo oo la riixo oo ay dhuxusha ay helaan farsamada ay ku riixi lahaayeen waxay ku soo aruurin lahaayeen waxay ku soo qaadi lahaayeen ama wixii ay ku qaban lahaayeen in la siiyo kuwa la baray ganacsiga la baray waa isla ayagii hadana ganacsi intaas lagu maalgeliyay ayuu ganacsiga noqon karaa marka inta lagu maalgeliyo wax lagu siiyo intaas uu noqon karaa UN Habitat oo hawshan waday waan la dhalinay dagaal hal sano kula jirnay inaan gabdhaha aan kor u soo qaadno sababtoo ah laf dhabarta bulshada waa gabdhaha hada gabdhuhu kuwa yaryar kaliya ma haya dhammaan anagu gabdhahan u aqaanaa gabdhaha meel kasta iyo albaab walba waa hooyadaanadii waa walaashaanadii waa tiina dhashay waa tiina soo xumbaartay haddana bulshadii ayagaa wuxuu ah maantana Soomaaliya ninkii gabar dhalay baa ka badbaaday anu gabdho badan baan leh
marka ninkii gabar dhalay baa ka badbaaday waad ogtiin Soomaaliya markay burburtay wixii badbaadiyay gabdhay ahayd wax qabda hadda meel kasta oo ganacsi oo tagta waa ayadaa fadhida run ahaantii aad iyo aad baan u mahadsantihiin dhammaantiin markaan intaa ka gudbo waxa weeyaan waxaan rabnaa UN Habitat sida uu gudoomiyuhu u sheegay baan ku raacsanahay in ay gabdhaha maanta sharafta badan ee meeshan joogay horta tababarka in loogu daro oo tababarku bila aadanku hadda halkan waxa taagnayd gabadh abwaanada oo wax curanaysa gabadhaas run ahaantii xigmad badan baa ku jirta haddii ay moraal heshana wax ka badan bay soo saari marka haddii dadkan dhammaantii la dhiirigeliyo oo ruuxu moraalku ku shaqeeyo moraalkiisa la dhiirigeliyo wax badan bay soo saarayaan waxaan qabaa inaan looga hadhin sidan maxamed qaasim cali waxar TV-ga Somali Cable magaalada Kismaayo